taliyihii duriya iyo maxamed cali ayaa fariimaysu keenay waanaga ka imanayna maxamed kaayna halkaas ugu yimid xudun bay u ahayd halganka afraad haddaanay afraad jirin korneyl tallaabaa ma jireen waxay tallaabeen korneyladu maalintii cabdilaahi siciid lagu dilay maaragtay dharkayn geeyo halkaasay noogu yimaadeenoo nin walba ku soo dhaweynay afraad anna waxaan ku darayaa ninba meel buu kaga jiray ama ninba xog buu hayaa anna waxaan ku darayaa intii aan ka qayb qaatay waxa weeye 1978kii ayay hawlahani bilaabmeen sababtay u bilaabmeenna waxay ahayd gobolka Gabiley waxa saaraa culays aan wadanka kala saarayn oo dawladii xilligaa jirtay ay gacmo adag bay ku haysay xukun adag baa jiray ciidamada joogay dhowr guutaa joogay 20aad 5aad NSS badan gaaskii Axmed Guray gaaskii Sheekh Bilise intaasiba waddankeennay joogeen waxaa jiray iyaguna dagaalkiisa masalan dadkii soo qaxay baa mushtariga ahaa oo hubaysan ciidamadana maaragtay la shaqaynaya oo u diiwaan gashan ayaa iyaguna dhib inagu hayay gaaskaasi waxaa la soo dejiyey xuduudka korkiisa dadkeennii dil dhac dhib badan bay ku sameeyeen taasaa waxaa ka dhalatay dhalinyarada intii maaragtay ugu firfircoonayd geesiinta aan ku tilmaami karo inay maaragtay hubka qaataan waxaa jiray nin la yidhaha maxamed cali annagu ninkaasaanu aada u wada shaqaynayno la taliya u ahaa isaguna farsamo yaqaan buu ahaa ulaheenoo dhan ayuu isna ka ahaa ciidankaasi markuu is urursaday dee sharciyad muu lahayn oo dawladdii baa raadsanaysay oo beegsanaysay afraad maxay ku soo baxday markaa magacaa xaggaynu ka keennay waxaynu ka keennay magacaa dawladihii Soomaaliya ka dhashay innaga jabhad inaan samayno laynooma ogolayn 3 jeer oo jabhada la sameeyey mar waa 64kii marna waa jabhadihii Jabuuti marna waxa weeye tii Soomaali galbeed midna kumaynaan jirin waa laynaga baqanayo inaynu hub hela la tiidi taasi waxay keentay markaa inaynu u samayno maaragtay bal kuwa la ogol yahay inaan wax ka dhex samayno oo ku tacabiro inagoo hawlaheena kala wadana waxaan ka xumay Faysal Cali Waraabo cishadii dhaweeyda maaragtay dib loo doortay wuxuu yiri afraad Itoobiya la dagaalameysay buu afraad Itoobiya la dagaalameysay buu Itoobiya inagu lamayna dagaalamin waxa weeye farsamo la sameeyay ayay ahayd farsamadaasina habeenkay timid waxay ahayd ninkii Maxamed Cali nin khatar buu ahaa wuxuu sameeyay inuu qolada la yiraahdo maaragtay gaaskii Axmed Guray iyo ogaadeenka isku dhufto oo halkaasi si galbeed wax la yiraahdo la sameeyay si galbeed kolkii la sameeyay habeenkaas lagu dhawaaqay guuta afraad la yiraahdo inaynu maaragtay halkaa aynu ku darsano waa dhacday raggii hawlaha waday waxaan ka xasuusnahay kuwa aydaan u malaynaynin imika aniga aqalkayga la fadhiyay maxamed cali kaariye waa ka mid ahaa ninkii shaqaasheeda maalifka ahaa iyo suldaankoodii arrintaas markay dhacday baa nimanka gaaska Axmed Guri waxa ugu xoog roonaa abaskuushii baa laynagala hadhay maalintii dambe xalay kolkaynu taa dhamayna maalinimadii waa ta lagu xidhxidhayo maaragtay wajaale maxamed cali ciidankan afraad buu soo kaxaystay iyagii kuwii iyaga haystay buu ciidankana ku dul xeeray dabeeto ninkii militariga kala beydka haysto la yidhaa Ciise Guru ayaa wuxuu sameeyey inuu yidhaa ciidanka maxamed cali la bax qoladii ogaadeen iyo abaskuushina la yidhaa la baxa dabeeto raggii waa ka diyaarada saaray xamar lagu gubay
horta sidaasaa afraadii waxay nagu qabsatay abaskuushi waxaan xasuusnahay aniga iyo cabdikariin oo u tagnay ina laxoosa ninka la ilaa inuu xabsan yahay mooyaane oonu nidhi waar ciidankan afraada ma xaqiisa ha helo ama beeraha ha qotaane runta noo sheeg maxamed cali isna markaa xidhan baanu nidhi dee ninkan yaani baa iska xidhee ama guddi u saar ama ka sii daa maanta dalka adaa u sarreeye midna nooga waran baanu nidhi labada dukaan ee allay badi ku yaal ama wajaale ee nina haysto hubkii oo dhan oo ah dadka xaggaa ka soo jeeda nina baa solada lagu qabsanayo balse kuwa dan hoolaanayaan ka sheekee wuu ooyey dabeeta wuxuu u yeedhay nin la yidhaa cabdikariim qalinle oo show la yidhi huwatan abaskuul iyo isaaq isku haya afraade soo tiri baa la yidhi ninkiibuu u yeedhay ninkiibaa wuxuu yidhi abaskuulla 700 bay noqotay isaaqiina 70 waana afraadaan soo tiriyey buu wallaahi intuu dhirbaaxa qaaday ayuu intuu bartaa ku dhuftay buu kuraasidii xagga dambe madaxa awla galay anoo yaabanoo islaamna malaa uu kugu dari ayuu digii gabaxa noo soo galay markaa maxamed calina 3 shay iga maqnaaduu yidhi 3 uu sii daayay markaa waxa weeye kabacdi ciidanku horta sidaasuu maaragtay maraaxilkaasuu soo maray burdi baa haddana dagaal ka dhacay waxaa la damcay inamadii burdi joogay oo dhan in dil lagu xukumo oo cali samatar baa yimid oo waxaa ashkataynaya guutadii garaadada ahaydee carabsiya deganayd ayaa ashkataynaysa 10 oday oo halkeennana ilaa 5 oday oo hargeysaa raggaad garanaysaan xaruur maxamed ibraahim khaliif subdaa cabd gadax yuusuf taah raggaasaa ka qayb galay ayaa dee ka dagaalamay oo waa ka xaruur odhanayaa war waanu iska kiin celin maxaa wuxuu yidhi nimaan go-ka oolin waddanka ayaad u soo beldeshaano kolkaasaa tidhaan ka warbixiyo weji xabashaad bay leeyihin baad tidhahdaa horta innaga xabashiyuun baa laynoo arkayay waxaan culayska laynoo saaray oo jigjigiyo gabili dee waysa saaran yihiin raggii halkaa ka halgamay aada iyo aad bay magac u leeyihiin anigu waxaan etoobiya galay 1981 bishii oktoobar 30keedii halkaa waxaan xidhiidh ka samaynay maxamed cali iyo afraad iyo etoobiyaan iska dhexdhicinay oo ciidanku kolba dhan buu u kacayay waxaanu idhi ciidankaasi lama dagaalamayo etoobiya annagu waxaanu iska celinaynaa maamuladaa jira sidaa darteed ha la nala socdo taliyihii durya iyo maxamed cali ayaa fariimaysu keenay oo annaga ka imanaynay maxamed kaayina halkaasuu ugu yimid oo annaga ka imanaynaa jigjiga kolkii aanu ka nimid waraaq baanu usoo qoray maxamed cali iyo kolkaa uu yeer baqanayay culaysna wayna saaraayo dowladdu wasiiro badan bay soo dirtayoo la doonaya inaanay afraad tallaabin kabacdi waxaa dhacay xidhiidhkii halkaasaan ka samaynay 15 cishay lagu qaadatay waxa weeye markaa xudun bay u ahayd halganka afraad haddaanay afraad jirin kornayl tallaabaa ma jireen waxay tallaabeen kornayladu maalintii cabdilaahi siciid lagu dilay maaragtay dharkayngeeyo halkaasay noogu yimaadeenoo nin walba ku soo dhaweynay isaaqii raggii dee ninqarta ahaa durye yimaadeen xeryadii duryaa noqotay markaa meesha laysugu yimid kornayl walba uu ka howlgalay waxaa lagu berberanayay dagaalka allay baday iyo geedbalaan iyo wajaali iyo in maaragtay loo yar weerweeraro ayaa lagu berberanayay markaa sidaasay maaragtay bahashu ku bilaabantay dee rag badan baa ka qayb galay oo odayaashu ka mid yihiin baacmiltaru ka mid yihiin waxaan xasuusnahay cabdikariin oo hargeysa ka yimid anigu aanu allay badan joogo intidahaya cabdikariin ma xasuusataa ayuu yidhi waxaan doonayaa inaanu ciidan ururino 3 cisho ayuu la qayiliyay aqalkii yuusuf taar ma xasuusataa waxa weeye taakulayn baan siin jiray kolkaa
ay eriyada yimaadaan dhaga weynani la yidhaa ayaa xidhiidhka noo hayo dee waanu baqanaynaa annagu inaanu maaragtay ismuujinno waanu ka baqanayna marka waxa weeye halganka dadkii ka warrami lahaa ee ku faani lahaa ee aabbaha u ahaa ee hooyada u ahaa dee waa idinka ama inaga marka waxaan odhan lahaa hawlaha halkaa laga sii wado yaa laga daalin taariikhda dad aan waxba soo halgamin ama hawshoodu yar tahay ayaa sheegta guulo ballaadhan ayaa sheegta waar inaga faankanayana waa laynaga badiyaaye bal waxa weeye wixii jiray una sheegnay waxba yaynaan faanin